بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وليال سيدا الصحة عاوة وحنا قلت لك البرنامج كان إن شاء الله تعالى كسوق بيو سيدا الصحة يقفك كو قران كرو إنه هي السحر أما جن أما إن متكود سيدا أوجد حوي isku day inaad fahamta hadalkayga waxaa ka fahmi doontaa wax badan oo faa'iida insha allahu tacaala. qofka afarta qodob maaragtay ku saabsan sixirka ama jinniga ama isha sida lagu garto qofka inuu maaragtay uu hayo ama jin ama il ama sixir inuu hayo waxa waa afartan qodob ee soo socota weeye. qodobka koowaad, dhibaato qofka soo wajahda, dhibaato nolosha kusoo wajahda, because qofkan waa la dhalay adduunyadu iyo yimid markii uu dhashayna ma uusan wadan xanuunkan, bal waa dhibaato ugu timid adduunyada ku timid wey. marka afartaas qodob waxaa ka mid ah dhibaato qofka soo wajahday noloshiisa, oo maxaa ka mid ah qofka inuu shaqo la-aan noqdo. shaqu doonanayaa, shaqadii uu helayaa, laakiin ma ku sugnaanayo. markuu tago ama kuwa la shaqeynaya la diranaya ama isaga iskaga tegay. waa dabeecadda lagu garto qofka inuu sixran yahay ama jin u hayso ama il hayso. marka qofka hadduu xoolo yar haystay, wixii uu haystay waa beerdareenaya ama lacag buu bel ka soo qaadanayaa, isla markaaba way ka burburaysaa, way burburaysaa. dhaqaalihiisii ayaa burburaya qofkan. markuu qodobka koowaad weli ku jirna, qofkan in uu sixir ama jin ama il qabo waxaa ku ogaanaysaa marka u horeyso dhibaata noloshiisa soo wajahaysa. nolosha markay dhibaato soo wajahdo waxaa weeye shaqadii uu shaqaysanayay asoo shaqadii ku jira ayaa shaqadii managerkii baa maagaya ama kuwii la shaqeynaya maagaya. ma arkaysa markaasaa le shaqadaadii waa dhamaatay, iska bax. waa qofkii dhammaan u shaqaysanayo wey. markaasaa waxaa dhacaya qofkan guur buu maagayaa ama guur buu rabaa. guurkii asagoo ku guda jira oo wixii o dhan usoo dhammaadeen oo gabadhii la doonay oo lacagtii la bixiyey ayaa laga yaabaa danka burbur ka yimaado. maxaa yeelay qofka waxaa ku jira jin ama sixir ama il buu qaba. marka waxaasaa la diriraya oo samaynaya dabeecaddan dadku inay kala tagaan. sidaa awgeed qofkan waxbarashuu dhigtaa, waxbuu bartaa. waxbarashadii waktigii la rabay inuu maaragtay meel fiican ka gaaro waxaa weeye waxuu hagaagaya malaha. form four buu dhameeyey, jaamacad buu galay. markiu jaamacaddii bilaabay ayaa waxaa ku dhacay xanuun baa ku dhacay. marka waa dhibaatada waa dabeecadda lagu garanayo waay qofka inuu xanuunsan yahay ama jin qabo ama il qabo ama sixir qabo. marka waxaan kuu sheegayaa inaadan ku qaldin nafsadaada waxa haya iyo waxaan shayaadiintu ay sababta u yihiin. marka waxaan ka hadlaynaa waxa haya nafsadaada ee maaragtay xag ilaahay uga yimi, waxa weeye waa wax gooni ah wey. laakiin dabeecadda waxaan ku tilmaamaynaa dadka sixirka ama jinniga ama isha maaragtay la nool yaan wadnaa. marka midda labaad waa dhibaatooyin caafimaad baa qof ku dhacaya. qof hadduu sixran yahay ama jin u hayo ama ilaa hayso waxaa ku dhacay amraad nafsiya. naftii ayaa waxaa ku dhacay caafimaad darro. marka dhaktar baa la geynayaa, waa la baarayaa, waxba ma qabtee qofki waa xanuunsan yahay. qofkani waa xanuunsan yahay, maxay tahay wax ma qabte waa maxay? dhakhtarkan wuu baaray, dee waxa qofka uusan arkayn. dhakhaatiirtu ay barteen waxaa cilmiga wax barteen weeyaan. marka wixii ay barteen ma hayaan. beerkiisuu baaraya, keliyuhu baaraya, calooshiisu baaraya, madaxuu baaraya, waa ku daalaya. marka dhibaatooyin caafimaad baa ku imanaya. dhakhtar baa la geynayaa, waxba lagama helayo, waxaa leeyahay negative. qofkan waa xanuunsan yahay. waxaa laga yaabaa in cudur laga helo sida kansar oo kale laga helo, laga yaabaa. ma arkaysa dhiigga kansarka dhiigga kugu dhacay ama jirkaaga meel kamid a iyo ku dhacay. marka waxaa laga yaabaa isla markaaba inuu qofka yihahdo aniga halay maaragtay hindiya halay qaado, china halay qaado. ma arkaysa marka isla markiiba qofkii meelahaasaa la geynayaa
وقال لي كانسر كوهية وإلا جرى علوش هذا من العرق وكان دعي مركا قيبنا إلا جراوي والله قال يوقف اوبريشن المصابينية علوش من العرق وين يكون عليه لأنه صف على السينية وحاوي إن وسحر أما عني أما العبسية وي مركا إلهي سبحانه وتعالى ومد المسلمين تا عافيه عارف أنا سوكو كوبا بدبك سدحات وحنا قرية قفك دبيعتي سبب الميس دبيعات قفك وليه هي هدو مركا أمراض القلوب كل عضو أما كل عضو معرتي حنوكي إلهي سبحانه وتعالى نو مكانه وحكى بدل ما يدبيعات وحول البؤر الوشي ودتك إيه الكيسة وشي وهو أركي خلاف وخلافه وحسليه هي دتك بين بيكون شيئين أما دنت هذا مو وضع ساسو كليه مركزه وهي مر والبا ومرغيسين waxu ka murugoonay ma garanayo calaamada loo gurto saddexaad way waa murugeysay ma garanayo waxu ka murugeysay markaysa niyad jab mar walba waa niyad jabsay waxa ku dhacday rasuulaha ma garanayo waxa ku niyad jabsay ma yaqaano waxa ka murugoonay ma yaqaano waa calaamadaha loo garanayo mar walba waa cabsanaya qolku waa ka cabsanaya banaanku waa ka cabsanaya markaysa meel u run cabsi ayaa lagu ibtagay marka saasoo kale xanaaq afar la tasaa xanaaqsay furku taagaya maxaa ku dhacay hadaa wajhto wala maxaa ku dhacay waxa u dhacay kulli waxa ma qabo waa fiicanaha kulli markaysa waa dabeecada lagu yaqaano qofka maartay xanuunsan ama isha ama saarka bijiniga la nool waxay loo badan tahay sahrin qofka isaga maartay asibay walwal buu dareemaya walbahaar markaysa mar walbo walaalo oo walwalaya oo walbahaaraya qofka isaga ah maskaxdiisana ilowsha ku furnay ilowsha mar walba wuxuu iloobaya qofkan maskaxda fiicna oo maskaxdiisa aad u fiicnayd maxaa helay wax walba iloobaya wuxuu meel saaraya waa iloobaya ama qofkan uu qofsanay intii yeelada qaat markaysa bal ilaa uu la dagaalamo dadka deeskiisa oo dhan inuu la diro waxa ay u sameysay labadii isla hadlaysa wuxuu moodaya isagana ka hadlayso فإلبا أسيرته بجيبه كل عام سحر بهايبا ساسو بدن تبرك قوس بقفك تاني لا صعب قفك استاجيا إن نلاشك قوستو نلاشو كقوستنا يا قفك وحك قوستنا يا نل ودن وحجلاني إنه بنتو ولا ما أسكدي مت دويد وترساني نقطي بلا يدو كان عضي سان على النقضي ما هي وحلي هي ما أسكدي مت قوس marka insha Allah ta'ala qodobka u dambeeya afraad ee ugu weyn riyooyin joogta dareemaysa walaal riyooyin joogta marka cabsi ergaga xambaarsan habeenkii oo dhan dagaal baa ku jirta iyo maartay dhimasho iyo maartay saas kale riyooyin yaa dareemaysa riyooyinkaas marka qaar baa waxay tilmaamayaan sida lagu sihray tilmaamayaan qaabka sixirka uu yahay ay ku sheegayaan waxa kamid ah qofka sixirkiisa la aasitaan qofka sixirkiisa lagu sameeyay wuxuu dareemayaa qabri buu ku riyoonayaa soo qabriga gacanta kasoo dhex taaganaya oo qabtay qabsaas kula dhahay ma arkaysa ama qabuuru ku riyoonaya ama soo qabuuraha lagu dhex irsana ku riyoonaya ama qabuuraha soo dhex taagan ku riyoonaya ama godad waa weyn buu arkaya ku riyoonaya ما أركيسا لقول أحد يقول الوعصي ساسو كلام مركا وحقفك دريمة يا دال حضوها لا حتى النصشو كفرا قفك ودالي قفك إنه لشي ساميين جنيا يعيش يا سحرك مركا قدام بيسو دريمة يا دال صبح ودالي هي هبيك ودالي هي دورك ودالي هي عصرك ودالي هي السجا مرة بحاول دال نشاد واحد اللي هذا ما بالله وقف إسقى مركا إلهي ما هذا إسكال سبحانه وتعالى حنسوق من دون برنامج بدل ذاك المسلمين كيف يزن دونان إن أفضل مسلمة وهذا الكي مغلنا وحرجينا يا إنه لا يدرت وشر قريو معها إلى وشر قريني يسوع مارتي ماذا حقيقة أما ماذا حكري لكن شيء وجارت ذاك المسلمين تألنول أمراضا أنت المامي وإن أجد بيسا ولا لها المسلمين تعه مركز إن شاء الله تعالى وعلى مدها أفرت يعاون كهلي
waxay maaragtay ku saabsan yihiin qofkan inuu qabo il, inuu qabo jin, inuu qabo maaragtay saas oo kale sixir, waxaa weeye calaamada tilmaamaya wey. insha allahu tacala waa soo khulaaseeyey. ilaahay subxaana wa tacalana khayr badan ha idin siiyo. qof walba oo muslima oo maqlo codkaygana waxaan rajeynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu maaragtay gaarsiiyo walaalkiisa kale. marka ahadka intaa isku arkaahi ma aha inuu sheekh u tago, mana u baahnidba sheekh. walaal hadalkayga dhagayso, adigaa isku filan, kalsooni naftaada geli, isku day inaad tiraado allele waxaasaan dareemayaa, waxaan samaynayaa ruqyo aniga jeebkayga ah, aniga ilahay hadalkiisa saa iskale anuu isiiyey, anigana waa xanuunsanahay, waxaan samaynayaa alruqyatu sharciya. marka kayfiyadda loo akrinayo adna waad garanaysaa, adna waan garanayaa. waxaa isku daydaa insha allahu tacaala inaad maaragtay awalan ku bilaabato acuudu billahi min ashaytaan alrajiim, shaydaanka iska naar. markaa suurat lfaatixa ilaa iyo aakhirkeeda akhri ilaa bilowgeeda. markaa kadibna insha allahu tacaala waxaa samaysaa suurat lbaqara 10 aayad u horeeya akhri. markaa kadibna insha allahu tacaala waxaa soo qaadataa wattabacuu maa tadlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan ilaa aakiru laaya. ma arkaysaa waxaad ku celisaa aayaddaas 21 jeer ku celi, adiga afkaaga ku aqri. ma arkaysa haddaadan garanayna inankaa dhashay ama ninka ku qabo ama naagtaa qabto ama saas oo kale ehelkaaga u yeero, dadna waxaad tiraahdaa kor igu qaadhe igu akri 21 jeer aayadda maaragtay suuratu baqara ku jirta wattabacuu maa tadlu shayaadiin. haddaad 21 jeer isku akriso waa sixir fur wey. aayaddaas waa maxay? waa aayad ilaahay subxaana wa tacaala ku buriyo sixirka. ma arkaysa sida ilahay noo sheegay subxaana wa tacaala wamaa hum bidaarina bihi min axadin ila biidni illah. cidna kuma dhibi kartaa sixirka aad samayseen idanka ilaahay mooy, ilahay ogolaado mooyaan, qof inuu qabto mooyaane waxaad samayseen damaanad kama bixin kartaan in dadka muslimiinta ay qabanayaan. imisa sixir loo sameeyey, imisa sixir ku dhacday, imisa ilahay maaratay ka furdaamiyey oo ilahi subxana wa tacaala u sahlay. marka wuxuu ilahay ku qoray way kugu dhacayaan. wax allaale wuxuu ilahay ku qoray ma seegaysid, laakiin wuxuusan ilahi subxana wa taala ku qorina arki maysid. marka insha allahu tacaala dadka amraadda dareemaya waxaan rabaa in ilaahay subxaana wa tacaala maartay tala sartaan, ayna ogaadaan insha allahu tacaala inuu qur-aanka dawo yahay. si ilahay qur-aankiisa ku sheegay subxaana wa tacaala wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaun waraxmatu lilmuuminiin walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara ayuu ilahay subxana wa tacala aayadda ku leeyahay. qur-aan baa soo dejiyay dawo raxmad u ah ilahay rasuulkiisa kuwa rumaysan. aakhirka aayadda waxay tilmaamaysaa walaalayaal uma ziyaadinayo kuwa dulmiga sameeyey, gaalada, kaafiriinta, munaafiqiinta, mujrimiinta iyo kuwa suxaradaba maaragtay ilaa khasaare mooyaan wax kale uma ziyaadinayo. marka insha allahu tacaala ku kalsoonow naftaada, iscilaaji adiga. markaad 21 jeer biyaa soo qaadanaysaa, waad ku shugaysaa insha allahu tacaala. hadduu yahay waxaagi wax la cunsiiyey xanuun waxaad ka dareemaysaa halkaas ayaa xanuun ka dareemaysaa iyo caloosha. calaamadda waxay tilmaamaysaa inaad cuntay sixir ama aad cabtay ayay tilmaamaysaa. deedna waxaad samaynaysaa markaad akriso suurat lfaatixa oo baqaro 10 aayadood ka akriso, deedna aad akriso watabacuu oo 21 aad akriso, waxaad kusoo gabagabaysaa qul naas, kusoo gabagabee salliga nabigana ku dar sala allahu alayhi wasalam. deedna tufo biyahaas biyo weya, laakiin waxay noqonayaan biyo ku dhex jira qur-aan. biyahan haddaan caano ku dara see noqonayaan? biyo caanale bay noqonayaan. haddii lagu dara ka war basbaas, biyo basbaasle bay noqonayaan. haddaan saliid ku darana biyo saliidle bay noqonayaan. qur-aanka haddii lagu tufana qur-aan bay noqonayaan. biyihii isbedelayaan, waxay noqonayaan qur-aan. marka waxaad samaynaysaa insha allahu tacaala 4 litir ila 5 litir baad soo dhiganaysaa, deedna intaas ayay ku akrinaysaa. haddaad caloosha iyo halkaa xanuun ka dareemaysid, waad liiqday ama waad cabtay, saasoo kale ilahi subxaana wa tacala waa ka baryaa inuu kaa soo saaro. isla markaa waxaad samaynaysaa malab ayaad raadinaysaa, 2 litir aad ka shubanaysaa biyo ah. markaa malabkii baad ku daraysaa, malabka ruuc malaba ayaad ku dhex qasaysaa biyihii. waa malab maaragtay iyo biyo iyo quraan isku dhex jira, deedna waad cabbi doontaa. markaad cabta kadib calooshada ka buuxisana waxaad samaynaysaa bismi illaahi baad leedahay, fartaad afka gelin doontaa. matag fara badan baa kaa iman doona, waad ku celinaysaa. maya waxaaba laga yaabaaba markaad biyaha cabto intii ilaahay ku qadara cab, calooshaada gee, waxbaa laga yaaba matag inuu isaga yimaadaba. ilahay baa maxadda iskale subxaana wa tacala ii qadaray inaan shaqadeyda qeyb kamida ka sheekeeyo oon dadka muslimiinta uga waramo. ilahay subxaana wa tacala baa maxadda iskale ii qadaray
inaan waqtiga nolosha kusoo gaaro anigu ilaahay subxaana wa tacaala ii dooray in dadka muslimiinta ee dhibaataysan ilaahay subxaana wa tacaala kurbada ilaahay igaga faydo ma hadda ilahay baa iskale subxaana wa tacaala axaba annaasu ila allahi anfacahum linnaas buu nabiga sal alla alay wasalam waxaa ilahay agtiisa ugu qiimo badan dadka anfaca intaan nool ahayna shaqadan ahayn doonaa dadka muslimiinta dhibaya waxaan leeyahay ilahay ka baqa subxaana wa tacaala kuwa gaaladana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa qaata because qofka sixirkaa samey waa gaaloobay naag noqo nin noqo soomaali noqo ciddaa doonta noqo waxaa weeye waa gaalooday marka toobada ilahay way furan tahay ilaahay usoo noqo oo dadka muslimiinta codkaysa ka daa ma arkaysaa ilaahay idin shaafiyo in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu